injineer Faysal cali Warabe gudoomiyaha xisbiga u ciido soo gaaray magaalada Burco ayaa booqday seelada xoolaha ee magaalada Burco iyo sidoo kale mid kamid ah moolalka casriga ah ee laga beenayay magaalada Burco kormeerka gudoomiyaha xisbiga u ciido injineer Faysal cali Warabe ayaa waxa qayb ka ahaa mas'uuliyiinta xisbiga u ciido gobolka Togdheer iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga u ciido ee heer qaran oo ay kamid ahaayeen Yuusuf Kaysa Cabdilaahi iyo sidoo kale Maxamuud Cali Saleeba Ramaax gudoomiyaha Faysal cali Warabe oo la hadlayay shacab tiro badan ayaa sheegay in aan loo baahnayn in shacabka aan la kala qaybin isla markaana ay doortaan hadba hogaamiyaha dalka dhisi kara isagoona sidoo kale sheegay gudoomiyaha Faysal cali Warabe in loo baahan yahay in reer Togdheer ay doortaan golo deegaan oo dib ugu celiya cashuuraha ay ka qaadaan maadaama ay imika ku fashilmeen golaha deegaanka ee imika haya in dib ay ugu celiyaan bulshada cashuuraha ay ka qaadaan yaa la idkala qaybin burcoy وهالكين بودا كان يوي ولقى حولي اسمت وصوق شتى 20 وماشي aynu kaga baxnay midnimadii Soomaaliya laga qaynanay waa meesha wanaaga bilowda ee geesinimo bilowda ee munaafaqnimada aan aqoonin waxa leenahay dadka walaaleeya arunta jaamacada ku jirtay iskuulada ku jirta quruxda badan leh iyaan dad dileela ku nool qaska inaan idkala qaybimayn ku walaaleeya dawlad hoose wanaagsan keena oo idin harka imka asaysan idin haraysa oo mas'uul idin samaysa dawlad hoose mas'uul idin samaysa oo idin samaysa meel harsataan oo meel ku meelataan idin samaysa oo cashuurtiina idin ku soo celisay doorana insha Allah ta'ala qaal ilaahay ka baqaya wa kuwana hayna dhaafeen insha Allah ta'ala wa daadkii soo rogmay ka cabtaan laga ma ka hore kuwa ka cabimay kuwa dhammaan wanaagsan insha Allah ta'ala wa inoo xareeyada insha Allah ta'ala ووقت هالكين تنيك هو ناكسين أنت هو ناكسين ولا رجع براهن ولاته سومانا هن ولاته هذا بين وهالشوا هو ينوسو بأيه إلهي سبحانه إلهي نجحته عبد الله محمود موسى حذيفي تلفزيون عالمي أريال مقالة برعو.